akhyaaraysa waxnimo wacan oo wanaagsan waa subax isniina taariikhdana ay ku beegan tahay 1 bisha 6 2026 xagga taariikhda Itoobiya ay ku beegan tahay 24 Gimbood 2018 shacabka Itoobiya ayaa saaka u dareeray doorashada guud ahaan dalka iyo deegaanka waxaa laga bilaabay saacadu markay ahayd 12 subaxnimo codeynta doorashada toddobaad in ka badan 54 milyan oo muwaadin ayaa ka qayb galaya codbixinta si ay u doortaan hogaaminta dalka ee 5 sano ee soo socota goobaha codbixinta ayaa si habsami leh u furmay iyadoo dhammaan qalabka doorashada xilli hore waa la diyaariyay lana xaqiijiyay hofnaanta nidaamka ka hor inta aysan codbixintu bilaabin shacabka ayaa si ballaaran uga qayb galaya codbixinta iyadoo safaf dhaadheer ugu jira taasoo muujinaysa saha ay u qabaan in ay si xor ah mustaqbalkooda u doortaan waana doorashadii toddobaad ee ka dhacaysa dalka Itoobiya tan iyo markii la riday nidaamkii military 1991 ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inkastoo si toos ah aan loo dooran codbixiyaashu waxay dooran doonaan wakiilo ka tirsan baarlamaanka oo ka kooban 547 xubnood xisbiga hela ugu yaraan 274 qof waxa uu xaq u leeyahay inuu dhiso dowladda xigta ee hogaamin doonta dalka Itoobiya Abiy oo 49 jir ah ayaa xukunka qab 2018 kadib dibadbaxyo ballaaran oo ka dhana dowladda loogana soo horjeeday jimhadda dimuqraadiga ee kacanka dalka Itoobiya oo ay isbahaysi ay u badnaayeen siyaasiyiin ka soo jeeda Tigrayga oo xukumayay dalka 1991 halka nagala socotaana warbaahinta sare ee Soomaaliya